waxaa hubaal ah far kaligeed fool ma dhaqdaa la yidhi haddii ay bulshada iyo maamulka ku xeendaabanba aysan la shaqayn inuuna wax qaban karin waxaana ka codsanaa inay siday ila shaqay jireen iyo si ka sii wanaagsan ay ula shaqeeyaan waxaana rajaynaa haddii uu bulshada wada shaqaynteeda iyo tilmaamtii iyo dhiirigelintii duqa magaalada uu isiinayay ayadoo si laba jabaaran uu siiyana inuu gudo kara kana soo bixi karo waajibka loo idmaday maadaama uu yahay nin dhallinyaro oo firfircoon oo aqoon-yahan ah oo ku kalsoonahay inuu wax badan la igaga raysan doono ama wax badan oo habboon in la qabto uu qaban doono allah ku guuleeyaan leenahay waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala ee nagu kulmiyey munaasabadan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed oo fursad ii siiyey inaan u shaqeeyo dalkayga iyo dadka Soomaaliyeed qaasatan oo ii soo magacaabay degmada Wadajir waxaan codsanayaa maamulka madaxda gobolka Banaadir iyo degmada iyo laamaha amniga inay ila shaqeeyaan ayna si hufan ila shaqeeyaan iyo shacabka reer Wadajir inay ila shaqeeyaan waxaan rabnaa inaan aan ka sii wadno dadaalka meeshiisii waxaan ka doonaynaa mudane Bashiirow inaad degmada Wadajir ilaaliso wadajirkeeda taas ayaan kugula dardaarmaa waana kuugu duceynaynaa insha Allah waana ku garab taagannaa waana kala shaqaynaynaa marka xiga waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u soo jeediyo ammaan iyo bogaadin halyeeyigii degmadan maanta xilka halkaan sida sharafta leh ku wareejiyey gudoomiye Cabdiraxmaan waxaan leenahay heer Wadajir waa ku xasuusan doonaan taariikhdana waa ku xusi doontaa Cabdiraxmaan waa nin halyeey ah oo wax badan soo qabtay wuxuu soo gaarsiiyey meel fiican degmada Wadajir haddii ka maamul ahaan gobolka Banaadir aan ka hadlo canshuurihii soo aruuray gobolka Banaadir degmada Wadajir waxay ahayd number 1 waxayna ku naqatay sababta iyo dadaalka maamulka degmada oo ugu sareeyo Cabdiraxmaan waxaan kaloo rajeynaa oo aan ku kalsoonahay intii iyo in kale ka badan Bashiirna inuu sameeyo doono Bashiir maanta waxay ku aadan tahay maalin roobaad maalin qeeraysan waxaan rajeynaa Wadajirna gudoomiye qeeraysan inuu soo gaaro